kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey Itoobiya aynu ka helayno. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa sheegay inay qabsadeen buuraha istiraatiijiga ee Zobel iyagoo sheegay inay jareen wadada muhiimka ah ee isku xidha Waldaya iyo Maqale. Dhanka kale waxa ay sheegeen inay qabsadeen ciidamada dowladda buuraha Ambasel iyo Sodoma. sidoo kale ciidamada Tigreega ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay dib u qabsadeen magaalada Gashena. Dagaal culus ayaa ka socda dhinaca Zobel oo ku taala xadka Canfarta iyo Amxaarada laakiin raacsan dhanka Axmaarada. Buuraha Zobel waa kuwo istiraatiiji ah oo kulba qoladii haysata ay adag tahay in laga adkaado. Ciidamada dowladda oo dhinaca Canfarta weerarka ka soo qaaday ayaa bilaabay dagaalka saakay. Ciidamada TPLF ayaa iyagana waxa ay sheegeen inay iska caabinayaan weerarada dowladda. Wixii ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan wararkeena xigo. Mareykanka oo ku cadaadinaya madaxweynaha Puntland inuu waddan nabadeed ku dhameeyo ismarwaaga hay'adda BSF. Dowladda Mareykanka ayaa walaac xooggan ka muujisay ismarwaaga ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyay agaasimihii hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Diyaano. Sihayaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa 2 jeer la hadashay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyadoo ku cadaadisay in uu helo waddan nabadeed oo kaga baxo xiisadda taagan, sida uu sheegay diblomaasi sare oo Mareykan ah oo ku sugan Muqdisho. Guud ahaan waxaan ku boorinaynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah Soomaaliya ay ku waantoowaan ku lug lahaanshaha siyaasadda. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan la dagaalanka ururada xagjirka ah ee rabshadaha sida Al-Shabaab iyo ISIS Soomaaliya, ayuu yiri diblomaasi sare oo Mareykan ah. Ciidanka BSF ee Puntland oo ay tababareen saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda Mareykanka ee loo yaqaano US Navy SEALs ayaa ku milmay loolan siyaasadeed oo ka taagan gudaha Puntland, taasoo keentay in ay joojiyaan howlgalladii ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish. Ciidanka BSF oo tiraan dhan 600 oo askari oo si toos uga amar qaatay ciidamada Mareykanka ayaa dib uga laabtay xaruntoodii ku taalay Boosaaso iyagoo ka gadooday xilka qaadista agaasimahoodii. Saraakiisha ciidamada Mareykanka iyo kuwa diblomaasiyiinta ayaa ka walaacsan ismarwaaga jira kaasoo wiiqaya dagaalka ururada argagixisada ah.